barnaamijka gungaar oo aan ku dul istaagi doono shabakadu garwadeen u ahaa macallinkii dilaaga ahaa ee kooxda al-shabaab maxamed xaaji kacase mid ahaan uu soo tagay kala kama ka soo noolaa asad markii dadka masuuqaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib oo una footada iyo wixii waxaad ka daawan doontaan qamiista oo ay taariikhdu tahay 9 January ay telefishinka qaranka saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo qaybtiisa koowaad habeenka xiga oo jimcada taariikhduna ay tahay 10 January ayaa qayb labaad oo isla barnaamijka gungaar kamid ah ka daawan doontaan 8 fiidnimo telefishinka qaranka yaa dilay Allah u naxariistay General Maxamuud Xaaji Cali soo banaanka fadhiya bumug aan siinay maxaad ku ogtahay dilkii General Ismaaciil Makiyeele sidee loo dhigray General Quruur waa maxay dilbatay maqanayaal ka muteen maxkamadda ciidanka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah sidoo kale barnaamijka labada habeen ee aan idin madlay waxa uu ka bixi doonaa Radio Muqdisho saacadu marka ay tahay 9 fiidnimo isagoo cod ah cidii aan fursad u helin shaashada iyo raadiyo بسم الله الرحمن الرحيم داود يا شقيم هاي قدرنتا إنك مدنو كلنتي وناكسن مركلة واحد كسر دوتان برامج كفافرب أو عاد مقال كان أنا قيبتان عاد كل جيس دونتان شكدي أسبوع عندك قاد وهذا الهين منك دليل منك معلن كها دلاج إسكوب الدليل ومحمد حاجي أو مقعية يعني يصير بدن كوفر قل جري منكاس أو تلاتين الصواب في كسر مغضي محكمة عيدا مدى قارب كسيدة دولة الصومالية هالكاس أو دولة بكحكم تيدل تروشو waxaase sheekadiisa la yaab ka dhigaya in dawladdu ay dagaalkan jeclaa maxaadii xabado oo xubnaha ay tirtay maxaadii xabaashay maxaadii xujisay maxaadii xabado oo xubnaha ay tirtay xigaal baan ku maxaadii xasiday hadigaan rabay maxaadii xabado oo xubnaha ay tirtay magacyada ninkan uu isticmaalayay oo dawladdu mar walba oo ay qabato ragga oo soo dirsaday ay sheegaan magacyo kala duwan oo ay kamid ahaayeen magacyada uu isticmaali jiray cadaawe الكعسة ظاهر يحذيفة وأنا نسيدي أو استعمال جري محمد حاجي دلايان أو دولدو أي أد أقوى رتي مقعيدي سنترد بدن ما كدام بس أي نقطة إن أي انتقابات السيد يدو تاس أو لغو شيء إن أي كانتي مدارة وشاكتي إنه كشقي سكول ذا مجال المقدسة متكمل من وحبر dadka waxbarana uu yahay taas oo cadeyn ruuxa uu noqotay markii la baaray wuxuuna macallin ka ahaa iskoolka frontier la yiraahdo Englishka laga barto ee magaalada Muqdisho ku yaalo maxamed xaaji oo ka soo jeeda magaalada Bulomareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu magaalada Muqdisho ku dilay dad ka badan 180 qofood taas oo marqaati u ah heerka halista uu ku ahaa dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkan oo ahaa amniyaadka magaalada Muqdisho ee kooxda shabaab ninka ugu sareeya waxa uu kala oo gacantiisa ku maqan oo la sheegay lagu soo eedeeyay inuu dilay 3 generaal oo isugu jira booliska iyo militariga Soomaaliya sidoo kale waxa uu dilay oo uu ka sheekeynaya ku-xigeenkii xeraliyaha guud ee maxkamadda sare ee dalka waxyaabaha kale ee asad ninka la yiraahdo waa ninka la yiraahdo maxamed xaaji kacase lagu eedeeyay waxa kamid ah oo asaga afka ka qirtay inuu ka dambeeyay dilkii ama dhaawac loo geystay wiilka youtuberka magaalada Kuala Lumpur ee Malaysia jooga ee la yiraahdo Asad Xaaji oo ah nin naafa ah oo caan ka ah social media dilkii loogu geystay gobolka Shabeellada Hoose magaalada Marka taas oo uu maxamed xaaji qiranayo inuu ku lug lahaa dilkaas walow uu iska inkirayo inuu ahaa qofkii ka dambeeyay ee maskaxda ka dambeeyay laakiin waxa uu sheegay in la yiraahdo boodboodi oo ka tirsan amniyaadka inuu dilay shaki uu ka qabo ninka inuu information bixinayo waxa kale oo ninka la yiraahdo maxamed xaaji kacase waxyaabaha la yaab kale ee dawladdu ay yani ku eedeeday kamid ah inuu dilay ninkii gurigiisa ku soo koriyay oo ahaa nin sargaal dawladda ka tirsan ah inuu markii dambe gacantiisa ku baxay maxamed xaaji asagana uu ka sheekeynayo ninkan oo ah nin aan jixinjix iyo barnaamijka gungaar oo aan ku dul istaagi doono shabakadu garwadeen u ahaa macallinkii dilaaga ahaa ee kooxda al-shabaab maxamed xaaji kacase mid ahaan uu soo tagay kala kama ka soo Muqdisho uu ku geystay
أسد مركز دكتور مسكان يقانا قاركود سكان صاحب ونا فوتو waxaad ka daawan doontaan khamiista oo ay taariikhdu tahay 9 January ay telefishinka qaranka saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo qaybtiisa koowaad habeenka xiga oo jimcada taariikhduna ay tahay 10 January ayaa qayb labaad oo isla barnaamijka gungaar ka mid ah ka daawan doontaan 8 fiidnimo telefishinka qaranka yaa dilay Allah u naxariistay General Maxamuud Xaaji Cali صبرانك فديو أنسيني maxaad ku ogtahay dilkii Jenaraal Ismaaciil Makiyeele sidee loo dhigray Jenaraal Quruur waa maxay dil dhagareed ama ikhtiyaal dhammaan su'aalaha iyo kuwa ka badan oo xog badan xambaarsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena gungaar ugu dambaynse maxay shabakadu garwadeenku ah Maxamed Xaajiilka Case oo isugu jira kuwa la qabtay iyo maqanayaal ka muteen maxkamadda ciidanka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah